سلام الله عليكم أصحابتي إذا قيمها بدن كسر هذا مقال عصب ما أنت مقال كان وحن رواينا إذا كوسو قد بيو هكر مسلمة أو دنيا دوران كياب صدي هير قربات كوردان أي مدح قعنت صارتين مركي وجب صدي لو بقول تطبيق توم بنجي أو أي ليهين بدن عددكو بيكسنا أي وحي وبدناين إسرائيل وأمريكا تاريخ ديس أو كون أيان جعلستي إن ذي لو ذاقو كسر هذا مركلا يوم مقال كينا حمزة بن دلاج وهكر مسلمة ونرد شيء دلك ألجيريا وحكون شيء إسلا دلك ألجيريا وحنا شيء سندي كن سجال بقول سديتي وحنا كل شيء مقالو كم يده دلك سي ألجيريا لو نمجعه تيزي وزو إن كستوى قويس كيس الدنيا رسكا هاين سدا أو أي تهاي مدة كمهر استاجن وحبر الشديسة وحبر الشديسة كقاتي إسلا دلك ألجيريا إلا هير جامعات وحنا باجلر كقاتي جامعة ساينس كي تكنولوجيا لو مجعه باب الزو intii uu yaraa wuxuu ahaa farsamo yaqaan wuxuu ka shaqeyn jiray korontooyinka inta kadib lacagii uu ka shaqeystay korontada ayuu naftiisa dib ugu maalgelin jiray oo wuxuu ku baran jiray hackinka maadaama uu IT ka bartay maskaxdiisana fiicneed asigana uu jeclaa markuu bartay hackinka wuxuu shaqooyin u doontay shirkadaha waaweyn iyo bangiyada halkaas ayuuna shaqo ka helay oo uu ka shaqeysanayay xilliga wuxuu u shaqeysanayay qaab sharci ah oo lagu magacaabo ethical hacking micnaheedu tahay hackerka edebta leh kaasoo loo shaqeeyo shirkadaha waaweyn oo qofka si sharci ah uu ku shaqeynayo oo qofka ilaalinayo xogta shirkadda sidoo hawsha u watay maalin maalmaha kamid ah ayaa asigoo hawshiisa iska wata ay wuxuu arkay bank Faransiis ku yaala meel uu ka gali karo oo duleel ah duleelkaasina uu fursad aad u weyn ka heli karo marka isla markiiba wuxuu ka faa'iideystay jaaniska wuxuuna lacagihii uu kala diray hay'ado khayri ah oo laga leeyahay Falastiin iyo dalkiisii Algeria akoonkiisana lacag gaar ah ku shubay waxay ku buraarugeen madaxdii bangiga in lacagahoodii dhacay welina bangiyo kalena la sii dhacay way howlgaleen waxay ku guuleysteen inay lacagihii badankooda ay soo celiyaan marka laga reebo akoonkiisii khaaska ahaa Hamza oo ay awoodi waayeen inay lacagtaasi ka soo celiyaan Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ama kaag afka gacanta saartay meel ay wax ka bilaabaan waayay in ka badan 217 bangiyadood markii lacagooda la baxay wax xog ahna way ka waayeen Hamza intaa wixii ka dambeeyay ciidamada Interpol FBI-da Mareykanka iyo sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa ilaalo ka qabteen akoonkii Hamza ayaanu isticmaalin akoonkiisa muddo 3 sano ah intaa wixii ka dambeeyay wuxuu dalxiis u soo waday qoyskiisa wuxuuna ka soo degay dalka Thailand asigoo aqoonsigiisa bedelay Hamza ayaa wuxuu isdhahay xilligii aad lacagtan isticmaal lahayd ayaa la gaaray maadaama 3 sano ka soo wareegatay arinkiisa wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo meesha lacagta lagala soo baxay markii uu akoonkiisii damcay inuu lacagta kala soo baxo ayaa waxaa cod bixiyay alarm oo sheegaya akoonkii 3 sano la baadigoobayay in lacago lagala baxaya ciidamada dalka Thailand iyo Interpol ayaa tagay goobtii lacagta lagala baxay waxayna baaritaan ku sameeyeen CC kamerada waxay duubtay oo hareerahaas ka dhawaa ninkii Hamza ahaana magaalkiisa ayuu iska galay asigoon warkahayn waxa dhacaya ciidamadii ayaa soo ogaaday Hamza xogtiisa asigoon arinta socdo aan war u hayn oo islahayn waa lagu ogaaday ayuu u soo ambabaxay dhanka iyo airportka ee magaalada Bangkok si uu dalkiisii ugu laabto isla markiiba waxa meesha soo buux dhaafshay ciidan halkaas oo lagu qabtay Hamza sanadii 2013 FBI-dii iyo caalamkoo dhan ayaa la yaabay Hamza markay ay soo qabteen waxay ka filayeen in uu u muuqdo qof xanaaqsan ama murugaysan balse Hamza bedelkii murugta laga filayay uu faraxsanaa oo sawiradii laga qaaday oo dhan uu dhool cadeynayay sidaa darteed dadku waxay naanees uga dhigeen Smiling Hacker oo ay micnaheedu tahay hackerkii dhool cadeynta badnaa waxa kale oo isla sanadkaas la soo qabtay nin ay hawshaas la wadeen oo Russian ah balse xilliga cid arinkiisa soo hadal qaaday ma jirin ilaa laga gaadhay sanadii 2015 ayaa Mareykanka maxkamad lagu saaray asiga iyo Russiankiiba Hamza eedeymaha loo soo jeeday wuxuu iska difaacaba waa ku cadaatay oo xilligii la soo qabanayay laptopkii hawshu ku qabtay iyo chip yar oo dadka hackeriska kaliya qaata ayuu watay iyo kaamirooyinkii ay duubeen xilligii lacagta la baxayay sida darteeda isdifaacidiisa oo ay fashilantay Hamza waxa lagu xukumay 15 sano oo xarig ah saaxiibkiisa kalena 9 sano oo xarig ah asna lagu
xukumay. intaa wixii ka dambeeyay warkiisa ayaa la waayay. wargeys laga leeyahay dalka Algeria ayaa mar wuxuu faafiyay war been ah oo sheegaya Xamza dilkiisa. dhalinyaro dalkaasi Algeria ka soo jeeda ayaa olole ay ku taageerayaan Xamza qabteen, balse ololahaasi arintaa waxba kama bedelin. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay software-ka uu sameeyay Xamza ee lagu magacaabo Spy Eye in lagu dhacay lacago gaaraya $1 bilyan oo doolarka Mareykanka inta u dhaxaysay 2010 ilaa 2012. Xamza warkiisa halkaa ayaa lagu xiray oo hadduu eebeedma waxaa la filayaa in xukunkiisu uu dhammaado sanadka 2028 oo hadda 2022 ayaan ku jirnaa. waxaa u dhiman 6 sano oo kale. dadku waxay u qaybsameen dad Xamza eedeynaya oo dambiile ku tilmaamay iyo kuwa kale oo leh waa geesi oo wax fiican ayuu qabtay. bal adiga ahaan maxay kula tahay? ra'yigaaga dhanka hoose ee commentiga inoogu reeb. intaa ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday. intaan muuqaal kale ku kulmi doono sidaa iyo amaano Allah.